weligaagii ma cunta hilib waraabe mise aragtay qof cunayo mise waxaad aaminsantahay waraabuu inuu xaaraan yahay aan la cunin maadaamuu isagu dad cun yahay dad waxaa jiro cuna hilibka waraabaha aaminsan inuu xalaal yahay una qaata daawo ahaan dad ba intay xanuunsadeen loo soo qoray hilibka waraabaha markay cuneenna ku caafimaadeen halka dadka qaar ay aaminsan yihiin waraabaha inuu xaaraan yahay aan la cuni karin maadaamuu isagu dad cun yahay dadka qaarna waxaas dhama dhug uma hayaanoo ma ku mashquulinba haddaba haddii aadan hore u ogeyn xalaaltinimada iyo xaaraantinimada waraabaha waxaad maanta muuqaalkani ka bogan doontaa inuu waraabuhu xalaal yahay mise inuu xaaraan yahay maxay culimmadu ka aaminsan tahay oo ay ka dhaheen maxay afartu madhab ay qabaan intaba maanta ayaad muuqaalkani insha Allah ka bogan doontaa waxaanu cadeynayo noo kala dhigayo qaar ka mid ah culimadeenna oo uu ka mid yahay Sheekh Xasaan bal aan yara dhageysano Sheekh Xasaan oo noo cadeynayo diintu waxay ka aaminsan tahay waraabuhu waa kee waraabaha loo cuno afarta madhab maxay ka yiraahdeen bal aan yara dhageysano Sheekh Xasaan waxaa kaloo isaguna xalaala wadabacun durwaagaasna waa xalaal baalkaad aragteen geelayska markay abaar dhacaan dadka eberka ka dhiga wuxuu daynba jirin xayawaanka asagoo nool bacaroosha kala soo bixi oo dili bahal ka balaayaysan durwaa waa la yaqaana Soomaalidan arag libaaxa hataa intuu iskugu tago geesaa u dhigaya oo iskugu habar qayliyado wuu yiraahdo marka asagu waxa lagu yiri waa xalaal marka inuu xalaal yahay annaga Shaafiiciyada waxa nala qaba Xanaabilo Shaafici Xanaabilo waa xalaal bay yiraahdeen maalikiyana waa karaahay dheen cunudiisu xanafina waa xaraam bay yiraahdeen oo asagaaba ka cadawsan bay dheen inta kullu diinaab min asbaa waana akhbathu alhayawanat bay dhan walbaba alaab bay ka sii daayaan gabayo iyo ahad aathar iyo hawlay keeneen marka almuhim أحاديث كتمت كل ذي ناب من السباع وأحاديث متواترة أمام مشهورة في السنن والصحاح والمسانيد حديث كبنين يدرواقنا وحديث مختلف في صحته عبد الرحمن بن أبي عمارة المكي لا تفردي ولسكو خلافي وقف جيسية رفع جيسة هذا معني لسكو خلافي حديث سوق كره حلال نيمة كدروا معها سلف كانوا واسكو خلافي مرض يسدات هاي إن معنيه احتياط كان لو عليو أي شافعي أصل كودكيني وما اختلفت فيه الرواية عن رسول الله أو اختلفت الرواية عن الصحابة فالاحتياط ترك أكله كالقنفذ هل كان إلا مريا أهي لكن حديث كاياك توضى صحيح كا كل ودنا حتى رقوا وين با صحيح يعني لكن من حيث الأصول ما كلا فيري شريعة اللي هي مهيو تخصيص مثل عن مثل رواغو حيوانات ككالي ugaarhsada yuu lamid iyo waliba waa ka shar badan yahay cilada looga soo reebay waa in la fahmo لأن لا يجوز إثبات ما لا نظير له في الشرع إلا بنص نظير وإن له كل ذي ناب من السباع وحرام بالي حرام عدك يا شبيلك أساقا كخطر سندرواغو حرام عدك وحو قبصدو كعرسد أساقا كقاطع سوما يدارك درواغا كفيتشن أساقو بالدلي با وحو دافي مجرو مركا علادي واردة والله هلي حديثكي وحصور ريبه هيينا مرن با لوغو فوري inaan baaqi ku ahaano weeye xadiidkii mutawaatirada ahayd ee nabigu ku xarimay kullu diinaab min as-siba macnaha saaroon laakiin madhabka anagu waa sida xanafiyo waa xaraam maalikiyo waa karaaho xanaabila waa ka shaafici waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani haddii muuqaalkani aad daawatay share garay asxaabtada la wadaag aygana si ogaadaan wax ka maqan thank you